بسم الله الرحمن الرحيم. walaalayaal soo dhawaada chapterkeennii afraad ee cashirkeennii computerized accounting-ka QuickBooks Desktop ku saabsanaa. saddex chapter oo horeynu soo dhiganay oo ahaa kii horreeyay how to install QuickBooks Desktop, sida computerka lagu install gareeyaa. keenii labaadna oo ahaa setup company profile, sidii company aynu samayn lahayn, aynu uga dhex samayn lahayn QuickBooks-ga, sidii aynu u samayn lahayn setup a shop, sidii alaabta inoo taalla company dukaanka sidaynu u gelin lahayn muxuu ahaa programka. maantana chapterkan afraad waxaan ku dhigan doonaa day to day operations, sida muxuu ahaa shaqooyinkii maalinlaha loo qabanayay, hadday noqoto wax iibkii, hadday noqoto wax soo iibsashadii, ama waxyaabahaas oo dhan hadday tahay. markaas aynu u samayno waxaynu tegaynaa programkeena alaab baynu soo gashanay, alaab baa inoogu jirta liiskeedii. alaabtan aynu doonayna inaynu wax ka iibino 54 kaana 50 kaana 60 baa inooga yaala. alaabtan markaan doonayna wax ka iibino waxaynu tegaynaa create sales receipt baan tegaynaa. waa marka laba nooc baa jira, marka laba nooc oo iiba. mar waa mar amaahu qofkii kaaga qaadanayo invoice baa la dhahdaa, marna waa mar iib caadi oo kaaga qaadanayo lacagta ku siinayo. labadaa nooc baa jira. marka imika waxaynu samayn doonaa kii iibka ahaa. iibka markaan samayno, markaad ku dhufato muxuu ahaa sales create sales receipt, markaad ku dhufato windowgana kuu soo bixi doona. windowgan markuu soo baxo halkaa u horeysa waxaad ku qori doontaa customerka magaciisa, ama number baad u samayni, ama 123 haddii aanu muhiim ahayna, ama 122 waxaad doonta ku qori. markaan waxaan soo qoranaynaa muxuu ahaa Ali baa inaga iibsaday alaab. Ali inooguma jiro muxuu ahaa listkii customerska, deedna waxay noqonaysaa inaynu muxuu ahaa markaa waxaan ku odhanayaa Ali kuguma jiro customer checklist-ka. markaa quick add baynu odhanaynaa. quick add markaan idhaahno automatic buu inoogu darayaa. automatic inoogu daro, tallaabada labaad aan qaadinaa waxa weeye habkii lacagta aynu ku qaadanay, siduu lacagta inagu siiyey. deedna waxaan odhanaynaa markaa cash ayaynu dooranaynaa, gacantaynu kaga qaadanay. cash baad select siin. select markaas xagga wax kusoo baxaya datekii aad iibisay, alaabta ku iibsay, sales receipt numberkii weeyaan kana, maadaama aynu muxuu ahaa inaan hore u iibinin, number 1 buu inoo ahaanaya. xaggana description baad gashan kartaa, muxuu ahaa waxaad u baahato muxuu ahaa information baad gelin kartaa, waxba ugama baahnin. laakiin hadda halkan hoose waxay noo yaala column-ka, waxay noo yaala muxuu ahaa item, iyagana description-kiisii, quantity-gii inta xabo, rate-kii lacagtii, amount-kii inta laga doonayo, rate-ku waa per 1 marka inta laga doonayo. marka waxaad samaynaysaa item-iskii inoo diiwaan gashay, item-kaad ku dhufani, haddaad doonto magacii baad qori, haddii aad doontana ishayr baad soo jiidi. isha markaad soo jiido waa kuwa saddexdii item inoo diiwaan gashanaa. tusaale ahaan Huawei P50 Pro buu iibsanayaa, click baad siin. click markaad siiso halkan description-ka waxaad doonto ku qoraysaa marka waxaad ku xasuusanaysay. halkan muhiima, halkan imisa mid baad ka iibinaysaa. tusaale ahaan waxaad ilowdayba intii kaaga taalay stock alaabta, intii kaaga taalay waxaad ku dhufanaysaa calaamada yar. calaamada yar ku dhufato windowgana kuu soo baxaya 45 xabaad haysataa total quantity available. deedna close baad oranaysaa. marka intii mid iibsanayay kaa laba mid buu inaga iibsan oranaynaa, wax kale inaguma bedelayno. haga rate-ku waa per 1, kaasina waa amount-kii total ahaan. deedna waxaan tegi alaabta kale uu iibsanayo. halkaan in soo dad ugu soo noqono على حبة waa 900 markaad laba ku dhufato 1800. halka item 1800 laga rabaa, totalkii waa intaa 1800. item labaad markaan doonayno inaan samayno, halkii shubad soo kusoo dhufan iPhone 13 iibsanaya. tusaale ahaan iPhone 13 kaana xabad buu qaadanayaa, xabaddaa u qaadanayo. inta waad sii wadaysaa, marka intaas sii wadaysaa totalkii wax walba isaa kuu samaynaya. adugu waxaad gelinaysaa un itemkii uu doonayo qofku iyo xaddigii uu qaadanayay, inta lagaa doonayay ee muxuu ahaa muhiimkii waa intaa. deedna markuu intaas dhammaado waxaad samaynaysaa ama save and close baad oranaysaa, ama save and new haddii qof labaad kuu taagnaa alaab kala iibsanayay, save and new daaqadan sida kuusoo cusboonaysiiyo, ama aad iska xidho save and close ku dhahdo. markaad anagu save and close baan odhanaynaa. markaan save and close nidhaahno muxuu ahaa iibkii uu dhacay. iibkii uu dhacay maxaad ku garanaysaa? reportskaas tegaysaa xaggaa sare windowga. markaad doonaysa inaad ogaato windowgaas u daan tegaysaa, halkaas sale ay ku qoranta tegaysaa.
deedna waxaad oranaysaa muxuu ahaa sales by customer detail ama summary waa isku mid detailka ku dhufanaysaa markaa sales receipt cali muxuu iibsaday labada item buu iibsaday midna xabad labu ka iibsaday midna xabad markaa lacagtan ka doonayna waa intaas $300 si toosan ayuu inoo wada siiyey taasi waa taa allahumma salli ala maxamed habka labaad ee wax loo iibiyo soo sheegno waxa weeye create invoice inuu qofkii deyn qaadanayo kuma siinayo lacagtii laakiin wuxuu sii alaabtuu sii qaadanaya deedna hadhow buu lacagtii ku keenaya deedna waxaad oranaysaa markaa waxaad samaynaysaa wuxuu ahaa itemskii baad soo gelini waxaad qori horta magaciisii kan waa muhiim dee inaad diiwaan gashato qofkana deynta ku leedahay ood magaciisii caadigaa qorata ama telephone numberkiisii muse cali weeyaan tusaale ahaan oo kale deedna markuu dhufato wuxuu ku odhanayaa kuma jiro quick add badan qofka doonaysa information saxa ka diiwaan gashatidna markaa wad edit garayn kartaa deedna haggana soo geli isheeleed baa soo furi Samsung S21 Ultra imise buu qaadanaya 2 mid buu qaadanaya 2 mid buu qaadanaya waxay isku noqotay 1600 balance-ka lagu leeyahay lacagta lagu leeyahay ka 1600 deedna markaa isna taa markaa u samaysaa ama wixii kale ku darsanaya u samayso save and close balance isaga wax lacaga uu bixiyay ma jirto laakiin deyn buu ku qaatay deyn saleska eegno reportkeen soo eegno by customer isagoo invoice ku jiraa ka invoice uu ku jiraa lacag naga maqan weeye maaha lacagan haysano deedna markaa hab kale waxaa jira muxuu ahaa markan uu kadib qofkiiba lacagtii kuu keenayba tusaale ahaan alaabtii kaa qaatay lacagtiiba kuu keenay lacagtii markaa sideed u aqbalaysaa waxaad tegaysaa receive payment baad tegaysaa marka deedna click baad siinaysaa click markaad siiso waxaa kuusoo baxay receive from yaad lacagtan ka helaysaa yaa kuu keenaya yaa ku siinay xaggan ishaa soo jiidaysaa keen lacagta ku lahayn muusacad marka qof aanad ku lahayn haddaad ku dhufato xaggan hoose u fiirso there are no unpaid invoices buu soo qorayaa qofkaad ku leedahay laakiin xaggaas automatic noogu soo buuxinaya waka waxaanu ku leenahay intaanu ku leenahay marka payment amount qofkii wuu kala bixin karaa lacagtii 2 jeer buu kala bixin karaa ima 1600 wuxuu bixiyay 900 oo kale wuu kala bixin karaa deedna barna wuu bixin karaa barna wuu sii yeelan karaa deedna wuu kala bixiyay tusaale ahaan markuu kala bixiyay wuxuu bixiyay muxuu 900 deedna cash baan kaga qabanay cashkan kaga qabanay 1600 wuxuu 900 baa laga jarayaa inta marka laga jaro muxuu ahaa waxa ku haraya markaa muxuu ahaa 600 700 baa ku haraya cafwan oka $700 baa ku haraya taa ka muuqata markaa save and close balance save and close markaas idhaahdo haddaad ku noqoto receive paymentkii lagu wada lahaan maayo 1600 deedna qofkii waa soo dooranaysaa markaa soo doorato muuse cali maxaa hore loogu lahaa waxaa ku harsan 700 baa ku harsan 700 markaa markan 700 baynu ka wada qaadaynaa 700 baynu ka wada qaadaynaa cash baynu kaga qaadanaynaa wax ku harsanaanaya ma jiro save and close markaa haddii aad mar dambe haddaad istiraahdo bal hubso deedna aad ku dhufato aad markaa isheela soo jiidad muuse caligii soo saarto waxba laguma laha unpaid wax walba doonno unpaid wuu bixiyay marka ka labadaa hab waxa weeyaan waa iibkay ka mid yihiin labadaa hab waxay ka mid yihiin muxuu ahaa sida iibka dhaca invoice midna invoice waa deyntii midna muxuu ahaa midna waa rasiidkii caadiga ahaa midna waa helistii deyntii kaa maqnayd marka haye haddaba muxuu ahaa qof baaba ku yimiday oo iib doonaya caadiya iibkaa uu doonaya waxa weeye alaab badan tusaale ka qaybsanaya deedna markuu muxuu ahaa markuu alaabtii badan iibsaday lacagta ku badato wuxuu ku yidhi discount samee waxaasoo dhan baan kaa iibsaday deedna markaa discount samee buu ku yidhi waxaad samaynaysaa markaa laba hab baa la sameeyaa hab discount marka alaabtii markuu iibsaday qofkii alaabtii iibsaday P50 Pro wuxuu ka iibsaday muxuu ahaa 3 mid muxuu ahaa iPhone 13 kana 4 mid buu qaatay Samsung kana 2 mid intaas ku qaatay tusaale ahaan intaa markuu kaa qaatay inaad qofkiina soo diiwaan gashato 9,100 lacag ayaa laga doonayaa
markaa way badan tahay qofki wuxuu ku yidhi muxuu ahaa inaad ii samayso dee muxuu ahaa discount day samey deedna share baad soo jiidi share markaad soo jiido waxaad odhan markaa add new markaad tidhaahdo xagganaad ka doorani total ina subtotalkaas oo kale aad halkaa dhexda ku samayseen doonayna marka subtotal baad samayn subtotal markaad samayso magacii baad bixin markaa subtotal waxaa kasoo hoos baxaya markaa waxaa kasoo hoos baxaya amountku ku beegnaanaya marka inuu amountka inoogu beegnaado waayo amountkay muxuu ahaa lacagtii ku jirta amountku kasoo hoos baxaya okay baad oranaysaa deedna markaa 9,100 halkaas inaga soo baxay deedna 9,100 inaga soo baxay columnkan ka hoosaad iman markaa columnka soo saaraysa discountka haddaba imika aynu samayno discountka markaan samaynayno share baad soo jiidi add new baad isagan odhan marka add new markaad tidhahdo xagga waxaa inooga soo baxaya discount waxaa discount baad siini markaad magacii u samayso discount aad tidhaahdo percentkii aad markaa ka daynaysay ayaa ka goy marna lacag ahaan baad u gelin kartaayo lacagta $100 ka jar baad odhan $100 ka jari marna percent markaa percent 5% baa odhanaa marka 25% lacagtaas ka go'daa discount ah waa in loo sameeya ninkaa deedna okay cafwan accountkii markaa ay ka goysay waa discountkii waa waxa weeyaan waa kharashaad soo ma discount waxaa la dhahdaa discount expense baan u bixinaynaa waayo waa lacag naga go'aysa soo ma discount expenses marka inooma samaysna wayna weydiini setup wayna odhan samee markaa waynu samayni waa simple deedna waxaad odhan markaa muxuu ahaa incomeka halkaa incomeka ka yahay baad ka dhigaysaa muxuu ahaa expense waayo kharash maaha soo ma wax naga tegay dee ka go'ay soo ma deedna safe and new baad odhanaysaa okay baad siinaysaa marka waxaa laga jaray 5% wuxuu noqday 455 $8,655 waa too much waad yarayn kartaa oo adaa bedeli kara hadduu ku bato deedna qofka saasa discount lagu sameeya adaa ikhtiyaar le 2% 3% 4% baad odhan kartaa adaa ikhtiyaar le wixii aad ka dhiganayso laakiin saasaa qofku markuu ku yidhi muxuu ahaa discount ii samey saasaa discountka loogu sameeyaa deedna safe and close baad odhanaysaa lacagtaas muxuu ahaa intaasunbaa ku horgalaysmaysa marka tusaale ahaan qof baaba muxuu ahaa wuxuu kaa qaatay muxuu ahaa alaab deedna alaab buu kaa daynsaday muxuu ahaa 5 midho wuxuu naga daynsaday muxuu ahaa Huawei P50 5 midh 5 midh naga qaatay waxaad tiri markaa muxuu ahaa Cabdillaahi marka waxaad tiri haddii aad lacagtaas wada bixiso waxaan kuu samaynayaa discount 4,000 mar wada keento discount baan kuu samaynayaa baa tiri deedna markaa waxaad samaynaysaa markuu qaatay alaabtii muxuu ahaa Muuse Cali ayuu leeyahay kuma jiro quick add markaad tidhaahdo safe and close markaad siiso waxaad samaynaysaa markuu ku dhaa muxuu ahaa dee lacagtii muxuu ahaa tusaale ahaan discount lacagtii wada keenayba lacagtii markuu ku wada keenay waxaad oranaysaa muxuu ahaa waxaad tegaysaa muxuu ahaa customerka markaad tagto ama receive payment waa isku mid receive payment kana tegi kartaa ama receive payment kana tegi kartaa waa isku mid waa isla meesha midna keenaya waxba kuma kala duwanaa deedna qofkii baad soo dooran markaa qofkii lacagta ku lahayn ayaad soo dooran cali cabdillaahi buu ahaa intaasaa lagu lahaa deedna markaa lacagtii wada bixinaya cali cabdillaahi halkaasa tegi markaa discount and creditkaasa tegi soo furi marka discount and credit ma soo furtay deedna amountkii xaddigii lacag kan percent lama gelinayo xaddigii lacagee muxuu ahaa aad ka dayn lahayd ayaad muxuu ahaa ayaad ku samaysaa tusaale ahaan 100 baan kaa daayay baad leedahay marka discount accountkii muxuu noqonayaa markaa discountkii accountkiina soo gelinaynaa discount expenses kana soo gelinaynaa waayo kharashaad inaga tegay 100kaas halkaas ka go'aya deedna waxaa laga doonayaa 4,400 dhan baad oranaysaa wada bixinaya markaa lacagtii wada bixinaya 4,400 wada bixinaya deedna markaa halkaa waxay tidhaahdo deedna safe and close markaad tidhaahdo muxuu ahaa waa kan dad receive paymentkii kusoo noqoto waad soo saarto cali cabdillaahi
alajilaax laguma laha marka discountkaas boqolkaas saas ku tegi marka waxyaabahan aynu sameynayno iibkan iyo waxyaabahan waxaa laga waxaa laga ogaadaa reportiska waxaynu ku dhigan doonaa muxuu ahaa chapterkada u dambeeya sales by detail markaad tidhaahdo waa kuwa wixii oo dhan markaasi iibkii wixii dhacay muxuu ahaa maanta muxuu ahaa intaas oo dhan xagaa date ka bedeli kartaa marka hadda doonayso date specific ah xagaad ka bedeli kartaa kanaad muxuu haddeen maanta oo kaliya doonno dee maanta unbaa wax iibinay 26 bisha marka 26 wax ka horreeyay iibinay ma jiro waa kuwan cabdillaahi intuu iibsaday cabdillaahi intaas u iibsaday maxaynu u samaynay dad xaggaa hoose aragto discountka 5% baynu samaynay oo 450 8600 40 bay ka rabnay muxuu ahaa ninka cali la yidhaahdo caadi u iibsaday isagu 3000 invoiceka muxuu ahaa muuse cali 8000 saas oo kale saas u soconaya marka 4500 waa kaa markaa muxuu ahaa iibka discountka markaa muxuu ahaa discountka kasta markaa saasaa lagu sameeyaa waad xadidi kartaa limit baad u samayn kartaa muxuu ahaa qofkii qaadanayay daynta markaa unitkan uu yara dheeryahay chapterkani waxaynu samayn doonaa laba qaybood baynu u qaybin doonaa marka part 1 iyo part 2 si aanu noogu sii dheeraanin partkan xaggan ku jari doonaa maadaama uu aad u dheeraaday